dhalinyaradii ku guuleysatay koobka dhalinyarada cuslaatay ayaa munaasabad dhiirigelin loogu qabtay hotel Tiyub waxaana uu qabtay mulkiilaha Tiyub restaurant ee degmada ganacsiyeedka Wajaale Jaamac Tiyub oo magaciisa ay ku ciyaarayeen munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyarada aqoonyahanka ee ku nool degmada Wajaale iyo bahda isboortiga iyo waliba maamulka dawladda hoose ee degmada Tog Wajaale iyo ganacsato mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay oo hadalkiisa kaga kala dambeeyay ayaa iyagu waxay u mahadnaqeen ganacsadaha Jaamac Tiyub oo isagu dhiirigeliyay bahda isboortiga sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in la dirdirgeliyo dhalinyarada sidii looga ilaalin lahaa balwadaha iyo tahriibka mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna wax kamid ah hadaladoodii inta kadib waxaan u mahadnaqayaa dhammaan kooxda Tiyub restaurant ee ku guuleysatay koobkan iyo kooxihii kale degmadaba sida quruxda badan iyaguna u soo tartamay marka la tartamada qolumba guushu raacda marka aad baan u hambaliyeenayaa sida sharafta leh ee qiimaha leh ay u sameeyeen inta kadib waxaan doonayaa insha Allah tacaala in halkan ka iftiimiyo horta restaurant wuxuu leeyahay laba kooxood imaka kooxun baynu xalfadeedii joognaa waxa jirta oo kooxdii dhalinyarada cuslaatay marka koox yar yar oo kala jirto tiima oo iyaduna ka yar yar oo iyaduna restaurant ku leeyahay magaca restaurant ku ciyaarto iyaduna kooxdan kala oo rajaynaya insha Allah tacaala markaynu qabano wareegan kale gali doonto koobkan insha Allah tacaala keeni doonto marka labada kooxood buu leeyahay restaurant horta taa ku ogaada waliba oo sii wadi doona insha Allah tacaala wax ku dadaal doona saddex kooxood ka dhigno waxa igu dhiirigeliyay dhalinyarada imaka siyaasad bay galeen tabriib bay galeen nidaam kale galeen oo far badan oo balwada marka sidaan ugu soo jiidno dhalinyaradu isku xidhnaato aan qabiilkii iyo qabyaaladii iyo balwadaha iyo waxa kala duwan ay ugu mashquulaan ayaanu ku dhiirinayaanu insha Allah tacaala wixii aan ka taageeri karno inaanu ka taageerno isboortiga runtiina wallahi qarashaas waxaan ganacsatada war qarash badan ma gale dhalinyaradu iyaga sabeeyo kubadda yar iyo garamaanta yar yar iyo kabuun baa loo iibiyaa loo eego waa laba aan oran karo laba branchi oo runtii aad uga marka businesska magaalada capacity-giisa iyo baaxadiisa laga hadlayo haddana waxa ku dhiiradeen inay macnaha dhalinyar soo saaraan inay encouragement dhiirigeliyaan qofkuna shaqo markuu qabanayo without encouragement dhiirigelin la'aan qofku meel ma gaadho ama isagoon expectation iyo feeling in dhiirigelin doono in magaranaysa waxaan heer ka gaari doono cid waxaasi marka aqoon iyo khibrad iyo dhaqaale intaba ku bixisay hadaan haynin iyo maamultoona oo adag tahay in meel gaaro runtii idinku meel fiican baad gaadheen waxa weeye waad aad iyo aad bad u dadaasheen sayid baan yara adkeenaya hadalkiisii waa run oo koox dawladda hoose ku ciyaartay wali maan maqal maamulkiina waa uu fadhiyaa gudoomiyihii degmadu laakiin waxaan jeclay wixii dambe ninkii sakaaradu dhaaftay wuxuu dhintay dambaba marka gudoomiye ka dawladda hoosanada jooga jeclaan lahaa hadda intii hore idin dhaaftay inta dambe ee sportskaas in hawl runtii idinku aad u baahantiin ay tahay hawl waxa weeye inaad wax ka qabataan loo baahan yahay garoomada oo kale oo runtii iyaga laftooda dayactir iyo hawlaha rooga loo baahan yahay iyaga laftooda ka qayb qaadashadeedu bilowga waxa weeyaan ay tahay inay bilaabaan waa maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka uu ka joogay imka nagala joogo aan tacsiti raayalo u dirayaa maanta Hargeysa roob weyn baa ka daay shantii waxa weey dad baa ku dhintay waxa weey Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo dadka tacsibaynu gaarsiinayna inta ku dhaawacantayna Ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu Ilaahay caafiyo waxa kale oo ku hambalyeynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo markiiba dhibaatada dhacday ugu gurmad waxa weey shacbigiisa ugu gurmaday sayid oo waxa weey dardar culus ka sameeyay degmada Wajaale dhalinyartii cuslaatay iyo dhalinyartii yareed intaba isku keenay waajib bayna nagu tahay dhammaan kooxaha degmada inaanu dhisno oo nu ka shaqeyno kobcinta xagga isboortiga waajib bayna nagu maaha tiimka dawladda oo soo kaliya kooxaha weeyaan saad ka warqabtaan kooxaha badan baa nagu maamul bay leeyihiin sidoodaba garoonkuna waa waxay noo wada yaala haday maamul tahay haday dawladda dhexe tahay iyo haday ganacsatada magaalada tahay intuba way noo wada yaala hadaan anagu maamulkii Wajaale diyaar baanu nahay inuu waxa weey garoonka Wajaale waxa weeyaan roogiisa aanu dhigno diyaar baanu nahay balwadii oo laga maarmo iyo qofka shakhsiyad naftiisa oo dhisanta waayo haduu qof fadhiyo wuxuu noqonayaa muruqiisna uu seexanaya isaguna karti yeelan maayo hatta shaqadiisa kartoomada uu qaadiba kari maayo oo qof wuxuu muruqiisu liito noqon waxaan aad ugu farxay markii sida sharaf leh ee ay reewo Wajaale uga qayb qaateen u nooleen lahaayeen isboortiga marka runta la sheego isboort waa inuu ka liidano waana waxyaalaha lagu la dagaalami karo marka balwada waxa loo baahan yahay in dad kasto ganacsata sidoo walaalkeen uga qayb qaatay ha ahaato jaamac magaalada ka marka la ciyaarayo waxa ka jira koominiyo weyn magaalada Wajaale ka jira haddana run ahaantii waxaad moodaa in hadhaa inaynu dib u dhacnay oo aynu xagga kubadda dib uga dhacnay mulkiilayaasha ka qayb qaata dhiirigelinta ciyaartooyga Tiyub ugu horeeyo ma garanaysaa Ismaaciil Malaana ku xigo Khadar Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga Somali News TV degmada Tog Wajaale